sanad guuradii 20aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska ee Soomaaliland ayaa maanta si weyn looga xusay guud ahaanba Soomaaliland. munaasabadani ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland, gudoomiyaha maxkamadda sare, xubno ka mid ah golaha wasiirada ee Soomaaliland, golayaasha guurtida iyo wakiilada, saraakiisha ciidamada kala duwan ee qalabka sida, safiirka dawladda Itoobiya u fadhiya Soomaaliland, hay'adaha Soomaaliland kala shaqeeya dhinaca ammaanka iyo marti sharaf kale. dib waxa munaasabadani hadal ka soo jeediyay hoggaanka hawlgelinta ciidanka booliska Maxamuud Ducaale iyo sidoo kale taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland Sareeye Guuto Cabdilaahi Fadliimaan. sanadkii oo inta biyo ka dhacday iyo kuwa sanadka sanadkii 2012 waxay ahayd 18,988 halka ay sanadka ka noqotay 12,287 waxayna dambiyadu sanadka kaceen 2,298 waxaa sanadkan tababaro iyo siminaaro kala duwan oo aqoontooda iyo xirfadooda booliisnimo kor loogu qaadayo soo qaatay 900 askari kuwaasoo ay ka mid yihiin ciidamada sida gaarka u tababaran SPU, RRU, CTU. waxaa kaloo ka mid ah 150 hablood oo aqoontoodu tahay dugsi dhexe sare iyo heer jaamacadeed. waxaa kaloo sanadkan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa tababaro siminaaro ku soo qaatay 120 sarkaal oo isugu jira saraakiil sare dhexe iyo baarayaal. waxaana ka mid ah wadamada ay ku soo qaateen UK, Ethiopia, Uganda, Kenya. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde ayaa sheegay inay wadaan ciidamada kala duwan ee booliska qalabayn casriyeysan oo la jaan qaadaysa booliska caalamka iyo sidoo kale xuquuqda uu yeelanayo askarigu. waxaanu maanta halkan jecelahay madaxweynaha kaaga sheegno in ay dhici doonin wixii ka dambeeya nin ciidanka booliska oo shaqadiisa gudanaya inaan madaxweyne dib loo xidhin isagoo fulinaya amar qaran isla markaana mar dambe la weydiin. waxaan halkan madaxweyne bulshada reer Soomaaliland uga soo jeedinaya iyo madax dhaqameedka iyo awqaashi arrintaas inay tahay arrin maanta sharcigeedii la baasgareeyey. gabagabadii munaasabadani ayaa waxaa hadal dardaaran iyo hambalyo isugu jira ka soo jeediyay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinaanyo. iyo wanaagayna haysano iyo midnimadayna haysano waxaanu ilaahay uga mahadnaqaynaa ilaahay ka shukr waxaanu uga mahadnaqaynaa ciidamada booliska iyo ammaanka dalka iyo dadka gacanta ku haya ayaanu uga mahadnaqaynaa. waxaan leenahay muddadaa uu jiray shaqo aad iyo weyn bay qabteen. waxay u soo jeedeen hal iyo habeen nabadgelyada dalka iyo ammaanka dalka ilaalintiisa ayay u soo jeedeen. waxaanu leenahay sidii la tilmaamay ee halkan ka muuqatay shaqooyinka ay qabteen tafaasiisha ay ka bixiyeen siday xogwaan yihiin siday ula socdaan wixii dalka iyo dadku u baahan yahay. waxaanu leenahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin. waxaanuna ballan qaadaynaa haddii aanu nahay madaxweynihii qaranka aan ahay inaanu gacan buuxdo ka siino ciidanka ammaanka iyo nabadgelyada iyo boliiska wixii ay u baahdaan waxa ay ku sugayaan qarnimadii ammaanka dalka iyo dadka ay ku sugayaan waxaanu ka siinaynaa gacan buuxda.